رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada mar kale iyo koorsadayni data analysis and dashboards in Excel oo aan markaan ku baran doono si datada loo clean gareeyo saan analysis ugu sameyno datadeena. waxaan imaaneynaa meesha practice files ka noo yaalaan. practice files keena kadib datadeena tageynaa. meesha waxaan ku haysanaa laba worksheet. mid waxa waaye pre 2016 midna waa 2016 iyo 2017 datadeeda la isku daro. marka ugu horeeya arkaysid inay yihiin laba organization oo kala duwan datadeeda oo la isku daray laakiin hal data in laga dhigo. datada koowaad organization kan ABC data collection ayaa datadan soo collect gareeyay. organization ka labaadna waa Wari. maybe waxa laga yaabaa organization kan xiligaas inuu contract ah, maybe waxa laga yaabaa inuu region kala duwan uu kasoo qabanayo data collection ka. muhiimada waxay labadan data inaad isku dartid, labada data set inaad hal meel isku geysid. new worksheet noo samey kadibna waxa u bixisaa data enter leh kan soo jiid inta cancel labada isku raacsanaadaan. waxa ugu horeeya marka inaan ogaan arabno waxa waaye headers iska mid ma yihiin. kan headers kiisa waxa ku ogaan kartaa marka hore asaga dhan highlight garay halkaas ku dhufo kadib waxa dhahdaa copy then sheet cusub tag meeshaan imo waxa dhahdaa transpose. base transpose wuxuu kaaga dhigayaa hadduu row ah column kaaga dhigayaa, hadduu column ahana row kaaga dhigayaa. waxaa kan u sameynayna waxa waaye inaad barbar dhigna labada header. kan u imo same header ka copy dheh imo meeshaan transpose. waxaad dareemaysaa region iyo serial number meeshaan isku mid ma ka ahan. district region waxaa fahmaysaa marka kan in uu wato column dheeraada. kan haddaan hoos waxay u soo qaadno muuskaaga isticmaal markuu isku bedelo afar arrow gaas hoos u soo jiid adoona meel kala taabanayn muuskaaga isticmaal kaliya si hoos u keentid. okay kan serial number wataa kan serial number wato marka waxaa ku qasbanahay inaan siino kanna copy dheh kan copy dheh tagay serial number u bixi. region way iskaga mid yihiin. district site name categorization meeshaan waxaa lagu dhahay site type kan settlement type. there is a difference. meeshaan farqiyaa jiray kanna farqiyaa jiray intaan kale iskaga mid ay ka yihiin. establish date. okay datada aan ku noqono kan ugu daran hadda aan leenahay waxa waaye labadan kala duwan. kan imo site name waxa uu yaqaanaa magacyadan site name. kan settlement type waa column kan settlement type wuxuu yaqaanaa site type. alright okay si aan u sii hubino wax datadan intaan filter gareyso waxay imaataa home kaaga filter dheh ama isticmaal control alt l. hadduu filter ku jiro filterku ka bixinayaa hada hal meel kaliya ku doonaya control shift l ku gelinaya filter si degdeg ah. marka site type ka fiiri waxaa ku qoran planned site iyo unplanned site ama unplanned. meeshaan imo shift control l settlement type waxaa ku qoran isagana planned site. okay spontaneous site farqiga meeshaan uu ka jiraa.
planetka iskaga mid ay ka yihiin laakiin kan spontaneous-ka meesha maxaa loogu yaqaanaa unplanet. Okay, waxyaalaha inaan saxno aan clean gareyna u baahnaan doonta ka mid ah sidoo kale district, region hadday magacyada isku mid yihiin iyo hadday isku mid u qornayn. Okay, marka aan ka bilowno tan meeshan datadan aan soo qaadano si datadadan dhan aad u wada dooratid shift control arrowga oo dhankaaga midig xiga dooro kadibna arrowga hoose datada dhan oo ku dooray control c dheh soo copyeyso meeshan oo keen datadeena control v hadda datada dhan inta ku imaanaysa. Okay, marka waxaa imaadaa meeshan isla intaan sameyno haddaan sameynayna laakiin markaan header kuma darayna intaan ka bilaabayna shift control arrowga dhanka midig xigta arrowga hoose copy dheh meesha ugu hooseysa datadaasan imo kan marka serial number maleen meeshaan ka bilaabna std serial number kan field meeshaan soo maaragtaan oo plus ka noqonaysa markay plus kaas noqoto hoos u jiidi kartaa macnaheeda out of field problemka datadii dhan iskaga ka ekaatay markaas oo kale waxaa sameyn kartaa plus sign kaas oo auto fill options ka ku qoran tahay waxaa kasii doortaa field series. Okay, datadeena waa isku keenay datadeeni hal midaan ka dhignay waxaan u baahannahay waxa waaye markaan datadan oo dhan inaan data type-keeda aan hubino sida date-ka oo kale hadda meeshan waxaa ku qoran est arrival date oo macnaheedu yahay estimated arrival date meeshaan lambaraha ku jira waa khalad column-kan dooro hadda inaad doorato column-ka rabtid waxaa ku dhufataa xarafka I ama J ama H korkiisa markay calaamadaas noqoto oo arrow hoos soo eegaya markaa ku dhufatid meeshaan imo oo home taaba joogtaa kadib waxaa kasii imaataa meeshaan text hadduu yahay waa khalad inuu date ahaado short date. Okay, good, hadda date haysanaa labadan column isla dooro ayagana waxaa ka dhigtaa general oo hadda numbers. Okay, kadibna waxaa kasii bixisaa decrease decimal anaga decimal ma baahnayn geli comada haddana decimalkii asoo galaa ka bixi because lacag ma aha meeshaan hadayt wax baan ka sheegnay maxaan ahanay laba magac oo kala duwan ay wateen laakiin isku data ku jirto hadda haddii aan filter gelino waxaan arkaynaa data inay redundancy oo soo noqonaysa meeshan planned site, spontaneous site iyo unplanned. Unplanned iyo spontaneous waa isku mid macnaheeda datadan hadda ugu jirto marka si aan u saxno waxaan u baahnaa labada magac mid inaan qaadano keeni la qurxo. Okay, meel walba oo unplanned ah spontaneous ku bedelo meel walba oo unplanned ah spontaneous ku bedelo marka waxaa imaadaa meel walba unplanned ah waxaa ku bedeshaa spontaneous unplanned meelaha ku jira. Okay, can you see it? Okay, unplanned datadan unplanned kulligood. Okay, mid kamid ah ka copyeyso copy dheh control C filterka ka bixi unplanned ka dhan waxaan rabnaa inaan hadhow spontaneous ku bedelno waxaa imaataa find and select
kadibna replace dooro shortcut-ka aad ku imaan kartid meeshaan waxa waaye control h waxa uu raadinaya waxaa ka dhigta unplanned-kii aad soo copy-haysatay inuu noqdo maxaana rabtaa inuu noqdo hadhow oo aad ku replace garayso spontaneous site-ka inta xitaa ka copy adoo joogo control c inta control v options-kan sii fur waxaan rabnaa exact match entire cell contents xagee laga baaraya ma sheet-kan kaliya laga baaraya mise meel kale sheet-kan kaliya laga baaraya ma row ahaan loo baaraya mise column ahaan by row loo baaraya okay hadda marka haddaad aadid replace all it has to replace 424 kadib then close ku noqo filterka kugu jiray fiiri now waxaa haystaa planned iyo spontaneous oo ah sida aragnay qaybtan hadda clean-keeda waa ka baxnay waxaa kaloo u baahannahay inaan region-ka iyo district-ga ayagana eegno region-ka inta badan marka aragtid datadan oo kale in analysis ku samaysid markaas waxa kuu soo baxaya data gap badan inuu jiro oo maybe uncleaned inaad tahay data aan u diyaarsanayn in analysis lagu sameeyo marka waqtiga ugu badan meelaha qaadato waa meeshan laakiin markii hore haddaa ka taxadartay oo datadaada ay data aad nadiif u ahayd way kuu sahlan tahay inaad analyze garayso oo dashboard iyo visualizations aad ku samaysid region-ka oo kale haddaan filter garayno oon eegno waxa ugu soo horeeya indhahaaga qabanayaan waxaa waa banaadir iyo banaadir which means inay wax ka khaldan yihiin meesha okay haddaa eegtid banaadir double a ah iyo banaadir kee kula khaldan double a da ila khaldan banaadir hal a isla sidii haddaa aytaan sameynayna laakiin markaan haddaa rabno column-kan aan doorano control h na aan dhahno kii hore haystaa soomayd waxaa dhahdaa raadi dheh findiga waxaa gelisaa banaadir kan kalena waxaa qortaa banaadir oo hal ah kadib replace all leh wuxuu replace gareeyay intaas hadda markaa imaatid meeshan hal banaadira ku jirta baay bari galgaduud geedo hiiraan loo shabeelle mudug nugaal sool waqooyi galbeed iyo tagdheer magacyadan waa ila saxiin hadda districtyada aan eegno afgooye laba nooc ay u kala qoran tahay oo usoo noqonaynaa af madow balcad balad xaawe boosaaso burco cadaado dhuuso mareeb gaalkacyo north gaalkacyo south kuwaas xanta gaalkacyo south gaalkacyo north in la dhaho hal gaalkacyo la jirta saan u naqaano okay jawaar kismaayo iyo kismaayo khalada meesha iska jira ayadana muqdisho qardho waxa ugu horeeya inaan saxan ay noqonayso waxaa waaye afgooye selectkan ka qad kadib afgooye gooni u dooro meeshaan afgooye oo double o ah control c control h afgooye meeshaan geli replace afgooye geli hal o ku reeb replace all leh hal xabooba noqdayba kaas kadib waxaa isagana aan u baahannahay afgooyi saan ma u qoranta ayadan double e maya kan waa khalad kan keligiis dooro markaan idaas ka tir meeshaan kusoo waa clear filterka filterada waa meesha si fiican wax ugu ogaanaysa afgooyi
afgooye badanaa jirta. Okay, control C, control H, hal oo ka dhig bas, replace leh 102 okay, clear garay kadib haddana maxaan u baahnaan doonaa inaan jeeg garayno Baydhabo, Balcad, Balad Xaawo, Beledweyne si sax ah u qoran yihiin, Dhuusamareeb, Gaalkacyo North, Gaalkacyo South. see tahay waa in hal Gaalkacyo ay jirto, marka Gaalkacyo door labadaba taxtana badanta haddaa dhahdid hal aan bedelaya ma bedeli kartid soo moogid. marka control C leh, control H, meeshan geli Gaalkacyada intaan kor laysoo koobiyo haddana inta geli. waxaan maxaa ku koobiyeyna waxaan diidanaa inaan qoro oo haddana mistake la sameeyo. replace all leh kadib meeshan north bedel north kadib in replace all leh meeshan marka waxaan arki doonaa inay hal Gaalkacyo kaliya jirto. okay, Kismaayo waa inaan bedelaa kaas. Kismaayo yu'day odayaa saxan yu'da khaldanaa isle. okay, control C, control H, control H, meeshan waxaa gelisaa Kismaayo meesha oda oo u bedel kadibna replace all dooro 4 xabo. good, qaybtaas waa clean garaynay. meeshan site name aan ku qoran, site nameskan aqoon badan uma lihi, magacyadan inay sax yihiin laakiin u qaadanayna. categorization urban, peri-urban iyo maxaan kale ku qoran meeshan category-ga urban, peri-urban iyo rural. okay, planner site, spontaneous site, individuals are total individuals, total families. now we are good to go. datadayna almost hadeertan waa clean, 100% waa clean waaye ma oranayno, laakiin it's clean now. marka datadaada clean garaysid waxaa aad muhiim u ah iyadana sidoo kale in datadaada laba mid u samaysid. midoo inaa range gelisid oo magaca u bixisid datadan. range-ga waxaa u samayn karnaa oo kale sida ayad sheegnay shift control arrow right-ka iyo arrow down, intaan ayagoo ku dooran yahay waxaa dhigi kartaa right click datada dhexdeeda define name, datada magac bixi. markaas waxaa dhigi karnaa range data. datadan fiirso hadda selectionkii haddoo kale haddaan sameyno magaca halkaas kusoo qabanaya hadda name box aragtaa. sidoo kale waxaa ka heli kartaa formulas haddii aad eegtid name manager range-ga abuurta waa kana. laakiin range-ga aad iyo aad waxa uga fiican datadaada in aad gelisid table. farqiga range iyo table u dhexeeya waxa waaye table haddaa function la samaysid automatically asaga rows ka hoos oo dhan calculate garaynaya. haddii aad data cusub kusoo dartid
tablekaaga pivot tables iyo hadduu kugu soo xiran yahay iyo charts automatically datadaas dhanka kalena waa si automatic ah uga arkaysaa. farqiga u dhexeeya kaas oo marka anagana waxaan rabnaa waxaan dhan in automated noqdaan oo datadan haddii data cusub oo bishan ah ama sanadkan ah aan kusoo biirina datadan waxa u baahanahay inaan pivotkayga pivot waa gaari doonaa weli hadda maana gaarin inaan refresh gareeyo. marka datada pivotka aan refresh gareeyo kadib datadii actualka ah ee saxda ah ayaa helaysa. laakiin range hadday tahay haddana range inaa mar kale magac usoo bixiso oo renaming kusoo samaysa ee kuu noqonaysa, which is not good. okay, tables aan u gelinaa datadan laba noocba table waa loo gelin karaa. mid oo homeka inaa imaatid waxaa dhigi kartaa format as a table inaad dhahdid waxaa ka dooran kartaa anything oo meeshaan ka muuqda designadan midka aad jeceshahay. okay, aniga waxaan dooran lahaa maybe kan. marka aad ku dhufatid u fiirso hal cell keliya datadaada ahaa doornaa oo active ahaa. haddii banaankan joogtid oo aad dhahdid ka waran format as a table, wuxuu sameynaa it detects cellkaas keliya. laakiin datadaada markaa ku dhex jirto cell ka mid ah oo aad dhahdid format as a table oo aad dooratay designada mid ka mid ah wuxuu ku weydiinayaa rangigaagi ma yahay. fiirso rangigan ilaa qaybta hoose dhan uu soo qaadaya. rangiga intaan iskaga mid ay ka yihiin iyo tableka u akhrinaya. laakiin waxa kul table hadda data dheeraada ku dartid asaga isfidinaya hoos isku fidinaya rangiga laakiin ma sii fidinaya. meeshaan marka qaar checkboxkan ma saarna oo micnaheedu yahay datadaada headerskeeda uu soo akhri waaye tableka. marka inaan dhahdid waa my table has a headers, tablekayga headers uu leeyahay. okay, dhahdid table waa noo abuur. hadda haddii aad si u fiirisaan design toolskan hadday inta aan table aan abuurin muna ku jirin datadeen. control z dheh. hadda u fiiris meeshaan kan ugu dambeeya waa view and tell me what you want to do. shortcut hadda markaan isticmaalo control L haddaan dhaho table lagu abuuraya. control T haddaan dhahana table lagu abuuraya. labadaba buu abuuraya laba shortcut oo isku mid ah. tableka markuu ii abuuray tool cusub uu kusoo daraya toolashii horaan ku jirin. toolkan waxaa ku jira qeybahan kore wax aad muhiim u ah. waxaa kamid ah meeshan oo ugu soo horeysa inaad horta magacaaga u bixiso. tablekaaga magac bixi. anaga data aan leenahay ileen datadayna dhan ku jirta tablekan. magac adig oo la fahmi karo adigana aad fahmi kartid xasuusnaan kartidna hadhow markaa baatid enter dheh. kadib pivot tables waan gaari doonaa. aad buu kugu sahlayaa pivot tables isticmaashid inaad slicers gelisid uu kugu sahlayaa. haddii aad export oo SharePoint list aad ku sameynaysid waad sameyn kartaa. datadan haddaad data kusoo dartay refresh dhihi kartaa. haddii aad datadan tableki inaad ka celiso oo range u bedeshid aad convert to a range aad dooranaysaa sidii hore oo uu kugu noqonayaa. sidoo kale waxa ugu horeeya laakiin aan bedeli lahaa waxa waaye fartaan iyo designkan inta badan ma qancinin. meeshaan imaanaya haddaad rabtid kuwa wax kaa qanciyo dooro. laakiin inta badan I will choose meesha ugu hooseysa oo clear table styleskan kore dhan ma rabo aniga clear kale si datadayda sideeda hore igu soo noqoto. u fiirso filterskan anaga ma soo gelinin asagaa la imaaday tableka la imaaday. haddaba laakiin checkboxkan ku dhufto wuu ka qaadaya. checkboxkan kusoo saaro oo uu soo gelinaya. head rows branded